السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب حرن جنة كمر كلا سود وهذا أدي هذا مهزنتين ما أنت واسنين نوفمبر نوا أفر سنة كنا والله بكون يفري اللواتن دورشدي محاكا دمان وحبو ساعة أو كليا يا نجاح وحلي رادو السنة بلو مالمو هذا وحل مالن أما بوح كسير أي دورشدي نوجا حرسن ثلاثة بريح يا لو دريرية دورشدان لبض مشرح يكون ترتميسه وكاملا هاريس يا دونالد ترامب daqiiqad kasta waxbaa isbedeli kara doorashadan aad ayay isugu dhowdahay waxaan rabaa inaan idin la wadaago aftiyadii u dambeeyay oo soo baxay Trump hadaladiisa uu sheegayo ma ku lumin kara doorashada oo qaar kamid ah hadda siyaasiyiinta waliba Republican ay leeyihiin Trump hadii uu doorashadan guul dareysto isaga ayaa afkiisa doorashadan isku dhaafiyay sidoo kale waxaan rabaa inaan leedo inta qof oo ilaa ay hadda codeysay gobolada ugu badan codadku isbedbedelaan gobolada laga codeeyay sidoo kalena professor jaamacad American University Washington ku taala taariikhda ka dhiga ayaa muddo 40 sano ah waxa uu saadaalinayay marka laba musharax ay tartamayaan midka guuleysanaya 10 doorasho ayuu saadaaliyay 9 waa uu saxay hal mid ayuu qalday hadda yaa waaye musharax uu saadaaliyay in doorashadan uu ku guuleysanayo muxuu ku saleeyaa saadaalintiisa ayaan rabaa sidoo kale inaan idin la wadaago madaxtinimada oo kaliya lagu tartamayo labada aqal ee Congress-ka aqalka wakiilada iyo waliba sanadka waa lagu tartamaya xagee la kala maraya sidoo kale wiil Soomaali ah oo orodkii maratonka ee masaafada dheer ee shalay ka dhacay New York ku guuleystay sidoo kale waxaan rabaa inaan idin la wadaago balse marka hore arrimaha doorashada aan ku hormaro doorashadii sugitaankii waa dhamaaday maalinta bariyaha codbixinta ayaa loo dareeraya waxyaabihii ugu dambeeyay ayaan rabaa inaan idin la wadaago Kamala Harris hadda kor ayay u soo kacday saacadihii ugu dambeeyay aftidu daqiiqad kastaba waa isbedelaysaa xilli kastaba second kastaba waxba isbedelaya ololaha doorashada maanta ayaa la soo gabagabeynaya caawo labada musharax Trump iyo Kamala Harris waxay ku sugan yihiin oo caawo ay ku soo gabagabeynayaan gobolka Pennsylvania oo ah gobol muhiim ah oo musharax waliba uu doonayo inuu gobolkaasi ku guuleysto hadii madaxtinimada uu helayo marka hadda Kamala Harris waxay muujinaysaa in 49% guud ahaan dadka u diiwaan gashan codkooda inay dhiibtaan oo laga yaabo inay codayaan ay haysato halka 46 oo Trump haysto afti kalena waxay leedahay waa ay siman yihiin oo 49 iyo 49 gobolada codadkoodu isbedbedelaan Kamala Harris waxaad u malaysaa saacadihii ugu dambeeyay inay sare u soo kacday gobolada qaar inta badan ba hadda iyadu ay ku sareyso Kamala Harris waxa muuqato hadda gobolada ay ku sareyso in ay yihiin oo hadda iyadu ay hogaaminayso gobolada Nevada, North Carolina, Wisconsin iyo Georgia hadii afartaasi gobol ay ku guuleysato Electoral College 270 ayaa looga baahnaa laakiin 274 ayay helaysaa Nevada oo 6 leh North Carolina oo 16 leh Wisconsin oo 10 leh iyo Georgia oo 16 leh afartaasi gobol hadda iyada ayaa hogaaminaysa ay aftidu leedahay marka Trump isaguna labada gobol ee Michigan iyo Pennsylvania labada musharax waa ismeeyeen mid hadda horeeya ma jira Trump ayaa maalmihii u dambeeyay horeeya laakiin hadda waxay aftidu muujinaysaa inay simeeyeen Trump wuxuu hogaaminayaa hadda Arizona oo kaliya sida aftidu ay sheegayso oo 11 cod leh marka Trump 219 kiisi hadii 11 loogu daro waxay micnaheedu tahay meel dheer uu san gaaray marka Kamala Harris ee madaxtinimada ay ku guuleysan karto 78 milyan dad ka badan ayaa codbixintii hordhaca ahayd codeeyay waa tiro aad u fara badan gobolada todobada codadkoodu isbedbedelaan Arizona 2,258,477 ayaa codkooda sii dhiibtay Georgia 4 milyan dad ka badan ayaa dhiibtay Nevada 1 milyan dad ka badan ayaa dhiibtay waxa ugu badan gobolka North Carolina oo dadka ugu badan ay codkooda ay ka dhiibteen dadka dhiibtayna waa 4,440,604 qof waa dadka gobolka ugu badan oo dadku codkooda si hordhacay u sii dhiibteen Pennsylvania 1,777,919 qof ayaa dhiibtay Wisconsin 1,499,000 waa almost 1 milyan iyo bar dad ku dhow ayaa codkooda dhiibtay marka gobolada codadkooda isbedbedelaan sidaasi ay hadda ay muujinaysaa dhinaca xisbiyada hadii aan oga dimuqraadiyiinta ayaa badan dadka hadda codkooda dhiibtay dimuqraadiyiintu waxa ay leeyihiin 41% dadka dimuqraadiyiinta codkooda ay dhiibtaan Republican-kana 39% halka sidoo kale dadka kale ee independent ama sidoo kale aan labada xisbi midna taageersan 20% ay codkooda ay dhiibteen qaar kamid ah siyaasiyiinta Republican waxay leeyihiin doorashadan hadii Trump laga adkaado afkiisa ayuu doorashadan isku dhaafiyay maxaa yeelay
waxyaabaha muhiimka diiradda ma saarayo markasta oo taageerayaashiisa la hadlayo hadalla qaladaada ama xanaf leh ama uu ku weerarayo Kamala Harris ayuu inta badan uu sheegay. Hadda shalay waxyaabaha uu ka sheegay Pennsylvania waxa kamid ah wuxuu yiri aqalka cad inaan ka tagaba ma ahin sanadkii 2020 because maxaa yeelay wax wanaagsan ayaan waday oo aan qabtay isla markaana qabanay. Marka qaab dictator ayay u dhigantaa qof laga guuleysto oo dhahaya haddana booskii ma banaynayo. Waxa sidoo kale uu shalay ku kaftamay waxa uu yiri waxaan ognahay Trump in laba toogasho uu ka badbaaday marka hadda waxa lagu wareejiyay miraayad aysan xabadu karin. Marka shalay waxa uu yiri dhinac kasta miraayad ayaa iga jirta dhinaca kaliya oo ii banaan waxay tahay dhinaca wariyaashu ay iga xigaan marka waxba kama qabo haddii inta la soo toogto wariyaashaasi xabadaas ay soo marto aniga kadib markaas ay timaado marka waxba kama qabo haddii wariyaasha la laayo ayuu u dhiganta. Marka hadalladaasi iyo kuwii taageerayaashiisa ay jeedinayeen maalmihii ugu dambeeyay waa hadalla xanaf leh waxay leeyihiin marka arrintaasi guul darro ayay Trump ay u horseedi kartaa. waa tahay Trump waxa uu sidoo kale leeyahay SNL barnaamijka caanka ah oo habeen Kamala Harris 9 sakan ay ka soo muuqatay ayaa waxa uu yiri waxa loo baahnaa in la yiraahdo equal time rule wax la yiraahdo ay ku xadgudbeen anigana waxay ahayn intaas oo kale inay isiyaan. Marka ololaha doorashada caawa waxa lagu soo gabagabeynayaa magaalada gobolka Pennsylvania waa gobol aad u muhiim ah sababtu maxaa yeelay waa tan hadda labadii musharaxba ay ku sugan yihiin oo doonayaan ololahooda doorashada inay ku soo gabagabeeyaan. Kamala Harris iyo Trump waxa ay waqti isku mid ah ay ka ololeyn doonaan magaalada Pittsburgh sidoo kalena Trump waxa uu tagi doonaa magaalada Reading waxay sidoo kalena Kamala Harris ay ku soo gabagabeyn doontaa magaalada Philadelphia halkaas oo waliba dad caan ah ay kula soo beeri doonaan oo Lady Gaga, Jay-Z iyo sidoo kale ay kamid yihiin oo halkaas sidoo kale ay kala ololeyn doonaan. Oprah ayaa sidoo kale kamid oo Philadelphia ayay ku soo gabagabeyn doontaa ololaheeda doorashada. Trumpna magaalada Reading iyo sidoo kalena Pittsburgh ayuu ka ololeyn doonaa. Marka halkaas ayaa doorashada ololaha doorashada labada musharax bay caawa ku soo gabagabeynayaan. waayahay waxaa jira nin professor ah oo taariikhda ka dhiga jaamacadda la yiraahdo American University oo ku taala Washington. Ninkan waxa la yiraahdaa Alan Lichtman 40 sano ayuu saadaalinayay doorashada madaxtinimada ee Mareykanka. 10 doorasho oo uu saadaaliyay 9 kamid ah waa uu saxay oo musharax uu yiri waa guuleysanaya ayaa guuleystay. Hal mid ayuu qalday oo sanadkii 2000 Al Gore uu yiri laakiin Bush ayaa ka guuleystay. Marka madaxtinimadii oo uu saadaaliyay doorashooyinka uu saadaaliyay waxa laga soo bilaabayaa 1984 oo Ronald Reagan uu saadaaliyay isla markaana uu guuleystay. Bushkii aabaha ayaa kamid ah George H.W. Bush oo 1988 labaduba Republican ay ahayn. Clinton waa uu saadaaliyay 92 iyo 96 labadii xilli 8 sano waa uu guuleystay. Waxa ku soo xigay Bushkii wiilka ahaa George W. Bush oo isagana 2000 oo kaliya ayuu qalday. Al Gore ayaa guuleysanay yiri laakiin waa laga guuleystay. Marka Bush waa uu saadaaliyay 2004 Obama 8 sano waa uu saadaaliyay 2008 iyo 2012 Trump waa uu saadaaliyay 2016 xitaa Trump markii uu guuleystay waraaqdan oo Trump soo saxiixay ayuu u soo diray oo leeyahay waad ku mahadsantahay saadaalintaada. Biden 2020 waa uu saadaaliyay. Hadda marka 2024 waxa uu saadaaliyay Kamala Harris. Marka professorkan waxa uu u cugsadaa saadaalintiisa 13 qodob oo la yiraahdo waa keys to the White House. Waa 13 qodob oo u suura gelinaya qofka inuu aqalka cad tago wadanka madaxweyne ka noqdo. 13kaasi marka 6 ama ka badan haddii musharaxa uu saadaaliyo uu leeyahay waa uu guuleysanaya. 6 amaba ka yar haddii uu leeyahayna ma guuleysanayo. Marka hadda waxa uu yiri Kamala Harris ayaa guuleysanayso. waxyaabahaas waxa kamid ah musharaxa inaysan wax fadeexa aysan ku furmeyn siyaasadiisa inuu isbedel uu ku sameyn karo inuu horay xil uga soo hayay wadanka oo Kamala Harris oo madaxweyne ku xigeen sidoo kalena qofkaas inuu soo jiidasho leeyahay. waxa sidoo kale kamid ah dhaqaalihiisa xilliga fog iyo xilliga dhowba inuu siyaasad u leeyahay. waxa kamid ah in siyaasadda arrimaha dibadda iyo militariga uusan wax sidoo kale fadeexada aysan ka jirin. waxyaabaha 13kaasi qodob marka musharaxu 6 kamid ah ama ka badan haddii uu leeyahay waa uu guuleysanaya uu leeyahay. Professorkan xitaa waxa uu yiri sanadkan ma arkin si markii uu yiri Trump waa laga guuleysanaya wuxuu yiri hanjabaado ayaa ii imaanaya qoyskayga wuxuu yiri guriga xitaa waan ka raray. Marka taageerayaasha Trump sida hadda qof yiri Trump waa laga guuleysanaya oo saadaaliye ay u hanjabayaan haddii Trump laga guuleysto maxay sameyn karaan. Arrintaasna sidoo kale cabsi weyn ayaa halkaasi ka jirta. waxyaabaha kale sidoo kale Kamala Harris siinaya waxay tahay in laga yaabo inay ku guuleysato marka la isbarbar dhigo. Horta haweenka 11% iyada Trump ka hogaaminayso. dadka madaxa banaan independent-ga 18 ayay ku hogaaminaysaa. dadka da'doodu 30 ay ka hooseyso 40% ayay ku hogaaminaysaa Trump. sidoo kale ragga ayuu 5 ku hogaaminayaa. dhinaca independent-ga 4 ayuu haystaa. sidoo kale dadka da'doodu ay 30 ay ka hooseysana 5 ayuu haystaa. marka halkaasina Kamala Harris sidoo kale waxa uga imaan karto guul.
marka sida muuqata hadda Kamala Harris ayaa kubaddu dhinaceeda ay jirtaa laakiin doorashadan xilli kasta ayay wax isbedeli karaan dadka qaar waxay soo weydiinayaan cilmiga todobada gobol ee codadkooda isbedbedelaan habeen dambe marka doorashadu ay dhacdo ma la ogaanaya maya doorashadan todobaadyo ayaa laga yaabaa inay qaadato todobaad amaba ka badan in natiijada kama dambaysta qofka ku guuleystay la ogaado maxaa yeelay goboladaasi tirintooda codadka waa in mararka qaar xitaa laga yaaba in gacan lagu tiriyo xitaa mashiinada Trump mararka qaar ma aaminsana marka waxaa laga yaabaa habeenka doorashada gobolada Republikaanka iyo Dimuqraadiyiinta oo kaliya ayaa natiijada la ogaan karaa laakiin inta badan goboladan todobada codadkooda isbedbedelaan natiijada habeenka doorashada lama ogaanayo todobaad ama ka badan xitaa todobaadyo ayaa mararka qaar leeyahay waa ay qaadan kartaa in natiijada la ogaado waa tahay aniga dadka qaar waxay weydiinayaan cilmiga Trump ayaa taageersan horta weligay Trump hal second ma aanan taageerin aniga mana codaynaya doorashadan because gobolka aan ku noolahay waa Republican haddii xitaa Kamala Harris hadda aan u codayo codkaygu waxba kuma kordhinayo gobolkan waxa electoral college waxa uu yahay gobolka qofka ku guuleysto ayaa sidoo kalena waxa uu noqonayaa in electoral college ka helaya hadda Minnesota kale haddii Minneapolis oo idil ay Trump u codeeyaan Trump gobolkaasi kuma guuleysanaya hal magaalo oo kaliya codka ay siiyeen electoral college Kamala Harris iyo Hillary because Minnesota waa dimuqraadi marka anigu haddii wax u coday la idhi lahaa Kamala Harris ayaan u codeynaa laakiin hadda maba codeynay xitaa iskuma diiwaan gelin doorashada inaan codeeyo Trumpna weligay ma aanan taageerin mana doonayaba inuu soo baxo hadda haddii aniga la yiraahdo yaa dooran lahayd Kamala Harris soo baxda ayaan dhihi lahaa taasina dadka isoo weydiinayo dhahaya Trump ayaad cilmiga taageersan tahay ayaan rabaa inaan u sheego dhinaca sidoo kale Congress-kana tartan ayaa ka jira labada aqalka Senate iyo aqalka House of Representative-ka aqalka wakiilada hadda Republikaanka ayaa hogaaminayo 200 iyo waxa ay leeyihiin 21 halka Dimuqraadiyiintuna 214 ay leeyihiin aqalku 435 marka Dimuqraadiyiintu waxay u baahan yihiin 4 kursi inay helaan si aqlabiyada ay ula wareegaan sanadka hadda Dimuqraadiyiinta ayaa hogaaminaya oo 51 ay leeyihiin 49 Republikaanka marka Republikaanku laba ay u baahan yihiin si aqlabiyada aqalka sanadka ay ula wareegaan in ka badan 32 gobol ayaana tartanku u ka jira sanadka waxaana ognahay sidoo kalena aqalka wakiilada in la soo wada doorto labadii sanaba mar in la doorto iyagana marka hada kuraasta ugu muhiimsan waxa kamid ah Ted Cruz oo Texas waxa la tartamayeen Dimuqraadi oo Colin Allred la yiraahdo walow hadda oo Ted Cruz uu hogaaminayo 50% uu colonist marka wayna arki doonaa labada aqlabiyadoodana cidda la wareegto ugu dambeyntii haddii aan sidoo kalena aan eego dhinacii orodkii masaafada dheer ee marathonka oo 50,000 oo qof oo ka kala socda 150 wadan shalay ay ka soo qayb galeen magaalada New York wiil Soomaaliya oo wadanka Holland ama Dutch ama Netherlands tartamaya ayaa ku guuleystay 2 saac 7 daqiiqo iyo 39 second ayuuna ku guuleystay waxaana sidoo kale uu yahay rikoodkii labaad ee ugu dhaqsiyaha badnaa ee orodkaasi marathonka ee masaafada dheer lagu guuleystay kii hore wuxuu ahaa 2 daqiiqo 2 saac 4 daqiiqo iyo 58 second waxa ku xigay oo 2 iyo 3 galay orodyahana ka socday wadanka Kenya dhinaca haweenkana 1 2 3 waxa galay Kenya iyo Ethiopia waxaan ognahay orodyahana Qatar ayaa ka yimaado marka Cabdi Nageeye oo Holland u tartamay laakiin Soomaaliya hambali ayaan leenahay isaga ayaa ku guuleystay tartankii amaba orodkii marathonka masaafada dheer ee New York sanad kasta lagu qabto oo 50,000 oo qof ay ordayeen oo 150 wadan ka kala socday aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waro idin la sida iyo nabadgelyo